wariyaa Soomaaliland dadka laascaanood horta lagu laayo ina horta yaa laaya dadka yaa laay noogi balaayaa laysan waniyo wax laayana garamayn yaa idinka islaaya ma anaga weydiinayso wax laayeen laascaanood inaad waa la yaqaanaayo hal doorka laascaanood lagu dilay 110 iyo 120 waxa la sheegaya dadkan wax laaya ee dadka dilaya maxaa u soo qaban weydeen kulay niyo waxna waa la xilliga dilku dhacayo ciidanku haduu u jiro dhowr boqol oo talaabo haduu u jiro xabada maqlayo ciidankaasina qofka uma soo dhaqaaqaan dhinacan ciidan baa kaga dhow xabada way maqlayaan dhinacan ciidan baa kaga dhow xabada way maqlayaan dadkii cararaan mar damba timaadaan sabab mudaharaad yar markuu ka dhaco laascaanood caruurta yaryar banaan baxaysa ee 12 jirada 10 jirada wiilashiya gabdhaha sababta aad u leysaan maxay tahay waliba dalayn aaka xitaa ma qoriyihii waaweynaa ee baabuurta saarnaa ada run doonaysaa dadkan cid laynaysa waa labo ama waa idinka ama waa cid ogtiin wariyaa Soomaaliland dadka laascaanood horta lagu laayo ina horta yaa laaya dadka yaa laay noogi balaayaa laysan waniyo wax laayana garamayn yaa idinka islaaya ma anaga weydiinayso wax laayeen laascaanood inaad waa la yaqaanaayo ana qabiil ninka loo dilo habeenka ninka lagu dilo subaxii ama isla habeenkaaba waa la garan jiray ka dilaa sheegi jiray ama reerka sheegi jiray oran jiray war ninkaas anagu nagu maqan yahay la ogaado ama hal la heshiiyo ama la isku yaaco dadkan habeen walba la laynayo ee culimadii leh aqoon-yahankii dhalinyaradii siyaasigii maxaan ku odaya aan waxba la dhaxal doorkii dhowr sano gudahood hal doorka laascaanood lagu dilay 110 iyo 120 waxa la sheegaya dadkan wax laaya ee dadka dilaya maxaa u soo qaban weydeen kulay niyo waxna waa la qabtaa ee bilaayo horta dadku dawladda iyo shacabku isma waa isjecel yihiin oo way isku fiican yihiin shacabku dawladooda way jecel yihiin bilaayo kulay inagu dhex jirto oo ma garanaysaa bal ninka gaboobay niyo wuxuu ku sheekay bal dawlad isku sheegan weyn waxa ku sheekeen mid baan ku sheegay dawladii meesha ka jirta adu mata ciidamo ma leedahay CID ma leedahay askar iyo boolis ma leedahay iyo military xabsiya ma leedahay magaalada ma cid baa kula maamushay soo adigu ma maamushid see nooga dhaadhicinaysaa intaas 4 sano 5 sano dadka la laynayo laascaanood lagu laynayo ee hal doorkii magaalada la dhameeyay sidee iiga dhaadhicinaysaa ma ogaan karo cid dalaysay maxaa marka dawlad ka tahay maxaa maamul ka tahay maxaa ciidamo ka leedahay maxaa CID ka leedahay ها هنا هرت وهرونه وهرونه هرت الدولة ويش قيسا سردون كذا إذا ما ذا نهوب كذا كل ويش قيسا الدولة هرت ويد ما يسترنتها ما قرأت أما كل أنت سوقس الدرا أنت كل وان ما ركتي دجال مرة من اللي بعث عترب تمشيته وين دلنا الدولة كل ويد دلاليسا تذكر كل والوجود تلتشرا وعلى سوق قبنية وحنا وعلى قبطي بارس بحكو صعدة مركز شعب كل هي استشيين dadkana waa la soo qabanaya bal ninkaas gaboobay hadda wuxuu ku sheekaynayo war inaadeen waxa inta iska deysid adar yaana laaya cidna laysan noo sheeg yaana laay dadka yaa laaya waxa soo dhan waan ognahay waa la soconaa dib ma lehe waxaan horta wax cusub inaadar maaha dadkoo dhan dunida dhan way ka dhacdaa dal kasta way ka dhacdaa oo maxaan ku raday qof la dilay iyo qof assassination lagu sameeyay iyo mid la toogtay iyo dunida waxan wax weyn maaha dunida dhan way ka dhacdaa ma garata marka waa laga baxaya waa insha Allah waa shacabkii dawladda hawada shaqeeyeen ma aragtay waa laga baxaya inaad okay su'aal kale laascaanood habeenka ninka la dilay waa la yaqaanaa habeenka ninka la dilayo askar baa magaalada laga soo buuxiyaa wadooyinka istaagin baabuurtay baarasa dadkay baarasaasa ilaa la bartay dadku ay yiraahdaan hayaay caawa mid baa yaala talokeeba mid deecan ay ka noqotay habeenka ninka la dilayo sababta askarta magaalada looga soo buuxiyo ee afka wada kasta looga soo buuxiyo maxay tahay noo sheeg askartu kulay waa un amaanka ma garatay amaanka mar haday dawladdu marbar habeen amaanka la sugo oo dawladdu kulay lagu soo daayo ciidamada magaalada lagu soo daayo taadu maxaa loo yaabas ma wax la yaabaa taas waa caadi waa bashaqadii dawladda oo haday amaan idinka tahay
أمان هذا إذا كتا حلية كلمة أمانكم مدة كله إسلا هبين كسبانين كل الدلية أمان كشيء كسان قف كل الدلية ما والله ما تاس ما قان بل ويديننا بل تريا عيدا كل ويديننا والله يرجع علي الله بشدة نقداي أنا أرجع على نوشيك دتك ياد لا نوشيك هم تنوشيك يا الله يا دتك إلا يقدر عند ما يسد دولة ديبانة هاي ما ملكي بانة هاي أنا مقالة كتلية عيداً بان ليه سردون بان ليه كاشقالان ليه وساردان ليه عشور بان دولة لما يسترن بان هاي haddana intaas oo sano dadka meesha lagu dilo ama maskiin wadada iska maraya la iska soo qabsadaa oo xabsiga la geliyaa kadibna muddo markuu joogo ama waxa lagu bal iska daayay ama isagii baa lagu xadgudub war waxaas ma shaqeynayso dadka cid dalaysaniyo noo sheega ciyaarta naga daayo warinaade waxa soorta waan dareemeynaa ibkaasina waan dareemeynaa koowde dilalkuna meel walba way ka dhacaanay waa insha Allah waa laga baxayaa كود عيدا شعب كوين عيدا كودا تاجران دولته وين تاجران إن وهجاجسة واضح سؤال كله اللي قديل كود عيو لاس عانود وإنير حبت وعلى مقلا كونها حبت كذا كونها كذا على مقلا وحكو قرصون مجرى حلقة مثل جامع عقبك اللي قديله حرمها عيدا كنت أدوي أنت وجرا وقت دامي قفك اللي قدله دامي وحرمه عيدان بقى او بوليس قيت بورت سيدك انتاس عيدان بعتاد اكس كانترول انتاس قفك اللي ديليو عيدانku haduu u jiro dhowr boqol talaabo haduu u jiro xabada maqlayo qofka xilliga qofka dhac wal dil qofka kalsooni buu qabaa laba 10 xabado ilaa uu ku dhufto qofka kama tago ciidankaasina qofka uma soo dhaqaaqaan dhinacan ciidan baa kaga dhow xabada way maqlayaan dhinacan ciidan baa kaga dhow xabada way maqlayaan uma yimaadaan qofkii markii la dilo oo ay dadkii cararaan mar damba timaadaan sabab waxaas waa dacaayad waxaas ma aragtay waxaas hadal waa dacaayad uu ciidamada uu lagu bahdilayo mooyaan waxa weeye waa la gurmadaayo waa la baacsadaayo qaar waan soo qabanaayo qaarna waa ku tala jirnaa ma garata marka wax weyn ma aha taas waa soo afjaran insha Allah mar dhow warnada been iyo dacaayadtoona ma dadka qiraya waa wax la yaqaano ciidanku qofka markii la dilayo xabada haday maqlayeen si kasta ugu dhowyo uma yimaadaan waa wax xaqiiqo taasniyo waxba hada firin runta iska sheeganayo dadka ciidankan qofka markii la dilayo ciidanku sababta u soo gurman waayeen maxay tahay soo wax la yaab lama okay taana ka jawaab ilaa hadda su'aal diiga jawaabto ma hayo su'aal kale aan ku weydiinaya mudaharaad yar markuu ka dhaco laascaanood askariga caalamka sharci waxa jira caalamiya oo askarigan qorigan inuu shacabka ku ilaaliyo loogu talagalay qori inuu shacabka ku laayo looguma talagelin shacab xitaa aan hubaysnayn nin hadduu hubaysano de kula dagaalamay iska bixin laakiin caruurta yaryar banaan baxaysa ee 12 jirada wiilashiya gabdhaha sababta aad u leysaan maxay tahay waliba dalayn aaka xitaa ma qoriyihii waaweynaa ee baabuurta saarnaa ee dhantaasoo kiiloomitir wax ka dili jiray intaad saa ugu foorisaan aad bagac kaga siinasaan xageedinku sharciga ka keenteen hubkan marka ma shacabkaad ku ilaalisaan mise dadka caruurtaad ku leysaan markaad runta ka cabs runta markaad baltan runta ka sheeg intii hore been baad ka sheegteen ada run ma doonaysaa dadkan cid laynaysa waa labo ama waa idinka ama waa cida ogtiin ilaahay ma ina dilayaa in adeero say iga dhaadhicin karta intaas oo sano boqol iyo dheeraad qof oo la dilay cidii dishay ma garanayno cida dadka laynaysa garan mayno dawladii baan anaga meesha maamulana xagee iga dhaadhicinaysa ruuxaas niyo meesha aqli xumada niyo nagalata